xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo taliyihiisa nisa mahad maxamed salaad ayaa lagu shiday toosh siyaasadeed aad u xoogan xilli irdaha ay ka xirteen dad badan oo cadaalad doon ah oo ay garab taagnaayeen intii bannaanka ay taagnaayeen. dhaliilo xoogan ayaa loo jeedinayaa xasan iyo mahad, islamarkaana waxaa loo soo saaray arrin ku saabsan in iyaguba ay ka gaabsadeen sidii farmaajo uu uga gaabsaday kiisas dhowr ah oo xasaasi ah oo looga fadhiyey in galdacwadeedyo ay ka furaan si loo ogaado xaqiiqda dhabta ah iyo cidda ka dambaysa. kiisaskaasi qaarkood waa dilal, qaar waa weeraro iyo shirqoolo kale oo lagu eedeeyey dowladdii uu hogaaminayey maxamed cabdulaahi farmaajo. haddaba dadka cadaaladdoonka ah maxay ku doodayaan? muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay beejkeena galwareed, nagu soo biir ayaan ku leeyahay like iyo follow dheh beejkeena, muuqaalkana la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanidin. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo la doortay 15 bishii May sanadkan 2022 wuxuu ku soo baxay doorasho cajiib ah oo lama filaan ah, kamana mid ahayn dadka sida weyn loogu saadaalinayay in xilkan uu ku guuleysan doono. hase ahaatee waxaa muuqanaysa in xasan sheekh maxamuud kadib guushiisii wax badan oo uu horay u ballan qaaday durbadiiba uusan ku dhiiran wax ka qabashadooda, iyadoona mahad maxamed salaad oo ah taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka uu ka mid ahaa dadkii sida weyn baraha bulshada ugu weerari jiray madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, isagoo ku eedeyn jiray cadaalad darro xoogan. waxaana sidoo kale mahad si joogto ah uu warbixino uga qori jiray taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir. hadda oo ay joogaan ku dhowaad 5 bilood xafiiska, mahad iyo xasan labadooduba waxaa lagu eedeeyey in ay garabkooda ka baxeen dad badan oo ay garab taagnaayeen, islamarkaana ololahooda doorashada loo arkayey inay ku xoojinayeen. arrimaha sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah arrinta dilkii allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan yariisow oo lagu dhex dilay xafiiskiisa, islamarkaana ilaa iyo iminka baaritaan sugan aan lagu samaynin, iyadoo lagu eedeynayay dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo inay soo abaabushay dilkaasi. xasan waxaa ka hortaagan in isaga iyo mahad ay soo saaraan xog dhammaystiran, ilaa iyo iminka shacabku waa ay ka wardhowrayaan. sidoo kale waxyaabaha isha lagu hayo ee xasan sheekh maxamuud irdaha uu ka xirtay taliyihiisa nabad sugiddana uu ku raacay laguna dhaliilayo ayaa waxaa ka mid ah arrinta dilka allah u naxariistee xildhibaanad aamina oo lagu dilay magaalada beledweyne xilligii doorashadu ay socotay. xildhibaanad aamina oo ka mid ahayd xisbiga uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ee UPD ayaa waxaa dadka sida weyn uga xanuunsaday dilkeeda ka mid ahaa xasan, laakiin ilaa iyo iminka xasan mausan bilaabin wax dhaqdhaqaaqa oo uu ku weyneynayo raadinta cadaalad dhab ah oo ay hesho gabadhaasi oo ilaa iyo iminka cidda dishay aan lasoo bandhigin. laakiin ra-iisul wasaarihii xafiiska ka tegay maxamed xuseen rooble uu shaaca ka qaaday inuu hubo in gacmo dowladda ah ay xilligaasi ku lug lahaayeen dilkeeda, islamarkaana qofka dilay uu ka yimid mid ka mid a gobollada dalka lalana socday oo la hagayay. weerarkii lagu qaaday hoyga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo lagu dilay ilaaladiisa ayaa sidoo kale miiska u saaran xasan iyo mahad salaad, laakiin weli waa ay ka gaabsanayaan oo kamaysan hadlin, iyadoo taageerayaasha damu jadiid inta badan ay isha ku hayaan sida ay wax noqon doonaan, iyadoo 5 bilood ee ugu horeysa ama 6 bilood ee ugu horeysaba xasan looga fadhiyey in cadaalad uu u raadiyo guud ahaanba dhinacyadaasi. kiiska kale ee xiga ee xasan iyo mahad salaad ay irdaha ka xirteen dadkii cadaalad doonka ah ayaa waxa uu yahay kiiska xasaasiyadda xoogan abuuray ikraan tahliil faarax oo ahayd gabar dhalinyaro ah oo ka shaqaynaysay sirdoonka Soomaaliya, raq iyo ruuxna laguma hayo muddo ka badan sanad. waa ay soo hadashay hooyada dhashay qaali guhaad, waxayna sheegtay in weli ay xanuunsanayso, islamarkaana raggii cadaaladda ay ka sugaysay ay ka gaabsadeen oo ay irdaha ka xirteen, iyada oo tilmaamtay qaali guhaad inay uga fadhido dowladda federaalk Soomaaliya in cadaalad rasmi ah ay gabadheeda u hesho, halka lagu dilay cidda dishay iyo sababta loo dilayna ay miiska soo saaraan. xasan sheekh maxamuud waxyaabaha uu sida weyn uga ololeynayay waxaa ka mid ah kiiska ikraan tahliil faarax. sidaasi la mid ah taliyaha nabad sugidda mahad maxamed salaad ayaa ka mid ahaa dadkii sida weyn u garab taagnaa maama qaali guhaad, laakiin iminka afkoodii ayaa juuqda gabay, danahooda gaarka ayayna raacdeen. taageerayaashii nabad iyo nolol ayaa hadda waxay aaminsan yihiin in sababtii ugu weyneed ee loo buunbuuninayay kiisaska qaar ay ahaayeen arrimo ku saabsan siyaasadeed oo aysan ahayn mid dhab ahayd oo cadaalad ahayd, halka damu jadiid
taageerayaashooda ay leeyihiin dowladda waqti badan ayay haysataa, weli madaxweynaha waxa uu ku mashquulsan yahay hagaajinta dowladda, sidaa daraaddeed ma aha in lagu fududaado dhaliil xilligan loo jeediyo xasan iyo mahad salaad. muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanideen.